waxaan idin leenahay inaad xafladan noo soo agaasantiin waa idinkaga mahadcelinaynaa annagoo dawladda Soomaaliyeed ahna sida uu sheegay wasiir ku-xigeenka igu horeeyay wasiir ku-xigeenka waqafta arrimaha diinta oo kamid ah xukuumadda federaalka Soomaaliyeed xukuumaddu iyo dawladdaba waxay sameyn doontaa insha Allah dalashadan aad maanta noo dhigteen mid ka weyn insha Allah kana khayr badan sida aad u jeedin wasiirka wuxuu ka mid yahay ahlu dariiqa wasaaradii waqafta maanta saa wasiir ku-xigeenka marka waa dareemi karteen in dawladdu ay xoog saareyso inay kor u qaado ashcaartii ahlu dariiqa waligeeda wadankan diinta islaamka soo gaarsiisay quraanka bari jirtay dadka Soomaaliyeed dhammaan culumta kala duwan bari jirtay marka wasiirka saaxiibka Shariif Saalax oo maanta u jeedin in qasiidooyin badan meesha uu ka aqriyay marka xukuumaddu ka tirsan wasiirkii ka horeeyna wasiirka amniga qaranka asagan sidoo kale doodishay xukuumaddu ka tirsan marka waa dareemi karteen xukuumadda ama dawladda Soomaaliyeed inay xoog saareyso inay ay aad u agaasinto ama mar walba ay xusto dhalashada nabigeena sallallahu alayhi wasallam maanta waad ogtiin xaaladda aan ku noolnahay wadankeena waxaan u baahanahay naxariis hadalladii rasuulka sallallahu alayhi wasallam ama xadiisiisa waxa kamid ahaa man lam yarham saghirana wa lam yuqir kabirana falaysa minna dhaqankaasna waxa laga helaa طريقة laga helaa culimada laga helaa in la isjeclaado rasuulka la jeclaado muslimiinta la jeclaado ahlu qiblada la jeclaado waxa laga helaa ahlu tariiqa waana tan keentay maanta inay kulankan weyninka badan oo qiimaha badan ay isugu yimaadaan marka annaga oo weynaynayno dhalashada rasuulkeena salawaatullaahi wasalaamu calayhi weynaynayno risaaladiisii weynaynayno halgankii uu taagnaa waxaad ogtihiin culimada inay halgan u soo galeen ummadda Soomaaliyeed inay diinteedu u ilaaliyaan inay diinta baraan inay gumaystaha ha ahaado ama cid kale ha ahaato oo afkaar la timid inay hor istaageen waxaad ogtihiin halgankii ay galeen culimo waaweyn waxaad ogtihiin meeshan dadka fadhiyo aad u tiro badan ayna ka maqan yihiin dad aad u tiro badan waxaa yimid nin ka mid ah culimada waaweyn shaqaweys alqaadiri ayaa yimid asagoo dhalinyaro ah waxaad ogtihiin dadaalkii iyo faafintii diinta uu faafiyay iyo tariiqada iyo raadkii qiimaha badnaa ee uu ka tegay oo ku koobnay Soomaaliya kaliya ee ku faafiyay bariga Afrika oo idil haddii ahaan Kenya haddii ahaan Tanzania ilaa iyo Malawi ama Congo ay tariiqada iyo xeebaha ku yaala badweynta Hindiya haddii uu fadligiisa cadiim oo ku tilmaamay khuluqiisa wuxuu ku tilmaamay wa innaka la ala khuluqin cadiim sayyidka Muhammad Allahu subhanahu rabbil izza dhahayatay adiga waxa tahay khuluq guhaad dabeecad cadiima away asigana wuxuu dhahay Ali Daawud alayhi salatu wasalam inna bu'ithtu li utammima makarim al akhlaq haddii uu fadligiisa cadiim ku tilmaamay oo khuluqiisa cadiim oo ku tilmaamay asiga illa adeeca wuxuu ka dhigay rasuulka illa adeeca wuxuu ka dhigay man yudi'i rasuula faqad adaa Allah qofkii oo rasuulka adeeca waa qof Ilaahay adeeca hadalkiisa wuxuu ka dhigay wama yadiqu 'anil hawaa إن هو إلا وحي يوحى رسولك إلهي ما بكون واقع إلا وحي أو إلهي يوحي ولا ما هنا ومع ذلك وحكون أعطي حياة الإنسان ومحوليها لعبرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون حياة هذا كدار رب عزتها هذا حياة الإنسان كدار محوك لو كدار إلهي بلديس كدارتي محورها لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد وحنكون دارها رب عزة ليه يا دارها رب عزة بلد النبي وبلد الحرام هذا اسمك يسوع كدارتي
محمد إلهي والعصر إن الإنسان لفي خسر وحنقول دارنا إلهي زمن النبوة زمن الرسالة ولذا إمام بوصلح إليها تتباهى بك العصور وتسمو بك عليا وبعدها عليا تتباهى وحافة أنت بيسي بك قبض هذا بك بوجودك العصور زميارك وتسمو ويكره هانيس عليا ومرتبة وبعدها عليا ويتمرتبة كوريس زميك نبيك زميك سكي صوحيك أو حوليه أنا نبيك كاحيك أنا كفضل بدر نبي عليه الصلاة والسلام زميك سوكون أساسه قيمة بدن أنت أسك بعدي إلهي وحو نبي أوصي عليه الصلاة والسلام ساعات كستوى ترقي لحظة كستوى لحظيك الواكسيفة اللي بدأيها ما عدينا وللآخرة خير لك من الأولى لحظة الدنبيس زمنك الدنبيس ساعة الدنبيس ساعة رك فضل وانت للنبي عليه الصلاة والسلام وحيك هذا خير بدأ من ظهره محايا الفيري هذا بسيط أن أفسرنه جميع الضاعات يجدي نبي عليه الصلاة والسلام أظن بهن الله جارسي يصلي آخريسه قرآن كذا آخرينسه صدق هذا بحنسه بالوالديك زكاة حجك جهادك أظن قال لك سوابي دين جدينت أو بمجرد كونه مشرعا جدينت أو جديك ليه قفك السمايا وفاعل كخير كاس أن أقول عليه الصلاة والسلام ساعتك استقفك صوت كذا ساعتك استقفك صوت إلى حصة قفك سبحان الله إله قفك أستغفر الله إله قفك قرآن أخرية قفك حجية قفك أو مارتا ياهو إن صلة رحم سماء قفك صدقة بحية قفك حسن نيو ناسا دفك قابلة وحكستو إلهي أحد أقصي خير أنت أقصي أحد كفاعل إن لم يدع النبي قال سيها عليه الصلاة والسلام ولذلك إلهي وحوليه وللآخرة خير لك من الأولى لوغو مسنين إلهي لنقاد كيسو حوري أنت لوغو مسنين مقام كيسا يدرجة ديس إلهي وحوري ورفعنا لك ذكرك وحان كوريا لسيدك محمد عليه الصلاة والسلام شرفت هذا قيمها قال كوريا إلهي إليه رب العزة هذا ومع ذلك حدنا إلهي وحوسي وبلغ هذا إلى النبي وكرالي دون كالي كان نقضه وحا دون إنه سيهايو